Hello, welcome back to my channel. Kusoo dhawaada channelkayga mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Videogan waxaan ugu talagalay inaan kusoo gudbiyo koorsooyin aan isleeyahay armaad muxuu ahaa dadka uga faa'iidaysaa. Waan doonaya inaan kol dhow insha Allah mustaqbalka dhow aan ka sameeyo recordings. Marka koorsooyinka indhahaad marin doonta hadduu alla idmo kadibna midkaad jeceshahay aad markaad ogaato yaad muxuu ahaa comment ama faallo yar u dhaafi doontaa videoga hoos uga tegi doontaa oo dhihi doontaa muxuu ahaa yes kanaan jeclahay luuqadda aad doonayso inuu ku baxayna aad dooran doontaa whether English iyo Somali labada midkooda ku bixi doona marka qaybaha koorsooyinka aan doonaya hadda inaan record gareeyo waxaa ka mid ah job skills ayaa ka mid ah waxaa weeye xirfadaha muhiimka ee looga baahan yahay goobta shaqada markaad joogto waxyaabaha lagaaga baahan yahay aan rabaa inaan ku bilaabo course-ka koowaad aan isleeyahay armaa dadka uga faa'iidaysaa waxaa weeyaan inaad barato sida loo qoro emailada muxuu ahaa lagula xiriiro dadka iyo hay-adaha ama wasaaradaha ee rasmiga ah sida loo qoro writing professional emails waxaa kaloo ku xigo sida loo qoro writing a job application waa arjiga lagu codsado shaqada raaca CV-ga raaca sida loo qoro si rasmi ah loogu qoro oo shaqooyinka marka aad codsanayso warqad si toos oo la hadlayso sidaad u qori lahayd oo rasmi ah oo shortlist lagu sameyn lahaa waxaa xigi doona writing your CV itself sidaad u qori lahayd CV-gaaga naftiisa wax badan oo waxaa jiro oo dad badan oo aqoon-yahano ah oo maanta shaqo la-aan ah oo CV-dooda markay gudbiyaan ayagu si qumaati uga turjubaanaynin oo qofku waxa uu ahaa si qumaati faalo fiican oon ka bixinaynin marka sidaasna uu shaqo la-aan qofkaas ku yahay marka waxyaabahaas aan kusoo qaadan doonaa insha Allah koorsiga koowaad aan doonaya inaan markaa aan soo record gareeyo mustaqbalka dhow waa kan marka waxaa xiga advance MS Word 2016 ayaa xiga waa koorsiga labaad aan leeyahay isagana sidoo kale armaa laga faa'iidaystaa waxyaabahan dhammaantooda dabcan waa job skills actually because wordka iyo excelka iyo powerpoint waxyaaba waxaa waye goobta shaqada si badan aad u isticmaali doonto in badan aad isticmaali doonto ama haddaba aad isticmaasho oo laga yaabo hadda inaad ku yar bahdilan tahay oodan aad u fahamsaneen marka advance MS Word waxaad ku baran doontaa waxyaabo ay ka mid yihiin muxuu ahaa industrial tools for formatting documents oo laga yaabo hadda inaan muxuu ahaa aadan fahamsaneen dokumentiyaasha rasmiga ah sida muxuu ahaa reportyada sida muxuu ahaa buugaagta sida articleska nimanka aqoon-yahanada ay qoraan ama muxuu ahaa reportyada ee laga qoro mashaariicda laga qoro kuwa muxuu ahaa midtermka kuwa muxuu ahaa quarter reports muxuu ahaa monthly reports annual reports waxyaabahaas oo idil marka qaab loo format garay ama loo dejiyay leeyihiin waxaa jiro waxyaabo la geliyo sida xigasho ama meel laga soo xigto oo kale xitaa proposalada markii la qorayo ama concept noteska markii la qorayo waxyaabaha qaar inta badan xogta oo daatooyinka meela laga soo xigtaa marka waxyaabahaas dhan qaabkii loo geliyo ayaad baran doontaa waxaa kamid ah footnote wax la dhaho kole waad baran doontaa cashirka markii koorsiga aad fahmi doontaa endnote sida loo geliyo oo documentiga loo geliyo bibliography sida loo geliyo interactive forms naftirkooda sida loo sameeyo sida formka caanka ee lagu codsado shaqooyinka UN-ka hay-adaha UN-ka lagu codsado ee la dhaho B11 form qaabka Word u samaysan yahay qaab loo buuxiyo leeyahay meelo aanu qalanku la saari karin aa jirto iyo meelo qalinka caadi loogu qori karo formkaas noocaas oo kaleeta sida u samayn lahayd waana muhiim markaad hay-adda ka shaqeynayso wasaaradda ka shaqeynayso forman badan aa la isweydaarsadaa oo xafiisyada isweydaarsadaan la doonaya noocaas inay u ekaadaan marka waxyaabahaas sidii loo sameeyo aad baran doontaa formkaas waxaa kaloo baran doontaa table of content sida loo geliyo documentiga reportyada markii la qoro oo kale table of content la geliyaa jaantusaa la geliyaa tusinaya dhammaan qaybaha kala duwan ee reportka tusinaya waxaa kaloo jira oo la geliyaa table of figures tani waxay anfacaysaa xitaa ardayda jaamacadaha ee qalinjebinaya qoraya buuggooda qalinjebinta qoraya ee project bookska qoraya iyo naftirkooda caawin doontaa waxaad kaloo baran doontaa insha Allah indexing waxa la dhaho iyo ahamiyadda iyo sababaha loo geliyo qaabka loo geliyo iyo meelaha laga geliyo reportiga aad baran doontaa marka koorsigan waa koorsiga labaad aan doonaya insha Allah mustaqbalka dhow inaan bilaabo waa haddii dad badan ay codsadaan oon ka arko muxuu ahaa commentiga aan ka arko sidoo kale waxaa xigo koorsiga kale xigo waxaa weeyaan advance MS Excel 2016 Excel waxa weeye dabcan dee waa lagama maarmaan waxa weeyaan goob kasta oo shaqo laga isticmaalaa
xafiisyada laga isticmaalaa, hay-adaha, wasaaradaha, xafiisyadooda, kuwa shirkadaha qaaska loo leeyahay. Maanta xataa iskuulaadkii iyo qaaska loo lahaa xitaa Excel ay ku keydsadaan muxuu ahaa datadooda. Marka Excelna waxa weeyaan aaladaha badan ee Office la isticmaalo kuwa ugu xoog badan waaye, ugu tun weyn, ugu faa'iido badan ee dad badan ay isticmaalaan weeyaan. Marka muhiimadiisa ayuu iska leeyahay. Marka koorsadan Advanced MS Excel waxyaabaha si khaaskan ugu eegi doono waxa weeyaan waxaa ku jiri doona if functions iyo nested functions, data analysis na isagana waan eegi doonaa oo si qoto dheeraan u eegi doonaa hadduu alla idmo. Waa haddii aad codsataan koorsigan. It's beautiful. Waxaan arki doonaa data analysis in Excel, several examples badanaan arki doonaa hadduu alla idmo. Marka koorsooyinka guud ahaan halkan intan ayay ku egyihiin. Saddexdaas koorso wey waa job skillskii caadiga qaybtii hore, Word 2016 iyo MS Excel 2016. Marka waa adiga doorashada adiga iskale, midkii aad ka hesho ayaad ka helay leh oo muxuu ahaa soo gudbi, commentiga ku soo gudbi. Markaas aniguna insha Allah recording kaan bilaabi doonaa hadduu alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.